halkan waa dhanka wararka daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka qodobada ugu xiisaha badan ee daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya hoggaanka hawiye haddaa maqasho horta waa mudulood weliba hoggaanka Soomaaliya sii noqayaan ayago waxay qatar ku yihiin canshuur bixiyaalna waa yihiin 35 kun oo ciidanana beledkan iyo gaararkiisa u joogaa oo maanta haddii la qool maqaalmo geel rag soo qumi karaan qabnaadi waaye rag kuu soo gurma karaan qabnaa annaga haddaad marka inti naga tagta xafiiskaaga oo maanta aad 8 qofood u magacaawdo oo qaarna waa Puntland qaarna waa Jubbaland tiri dadka banaadir iyo muduloodna aad ka tagtay waxaan aaminsanahay inaadan waxba inaadan suubinine colaad inaad sii badsato ama aad sii hursatay noqonaysaa maxaa jira annaga shalay ahayd taageeradaada markaan maaragtay meel walba ku fi beesha mudulood oo dil uga hanjabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre haddaba maxay tahay sababta warkeen idinku soo gudbin doonaa qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Kenya waxa ay shaacisay xiriir qarsoodi ah oo dhex maray iyaga iyo sidoo kale Xasan Sheekh gaar ahaan madaxweyne Uhuru Kenyatta haddaba maxaa laga heshiiyay qodobada islaamiga dhiganaya warkeen idinku soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale daawan doontaan oo warka qayb ka noqon doona dagaal ka dhacay gobolka Gedo wararkii ugu dambeeyay faahfaahinta dagaalkaasi laga helayo ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa iyo xaaladda guud ee magaalada Muqdisho oo ciidamo fara badan jidadkeeda lagu soo daadiyay qodobadaas aad daawan doontaan rukumo dhaanka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka oo xaqiiqda ku saleysan aan ku bilaabay beesha mudulood ayaa seefta gasha kala baxday kadib magacaabistii uu sameeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kaas oo dhawaan kala wareegay xilka ra'iisul wasaare xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kadib markii uu dhowr shakhsi magacaabay Xamse waxaa markiiba xanaaqay qaar kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo iska dhex waayay magacaabista sida beesha Muqdisho degta ee mudulood waxayna markiiba dagaal ku qaadeen ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Muxudiin Xasan Cali oo loo garan og yahay darba weyne oo kamid ah odayaasha waxgaradka u ah beesha mudulood gaar ahaan sida weyn loogu yaqaano dagaalanka xuquuqda gobolka Banaadir ayaa eedeyn culus waxa uu jeediyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uuna sheegay in uu dharbaaxi doono oo gacanta u saari doono haddii uu xafiiskiisa joojin waayo fuquuqa uu markiiba bilaabay sida uu sheegay Muxudiin Darbaweyne Muxudiin oo hadalkiisii wata ayaa sidoo kale sheegay in wax aan la aqbali karin ay tahay wax ka socda xafiiska xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uuna sheegay in magacaabistii uu sameeyay laga dhex waayay hal qof oo mudulood ah taasina ay xaraan ku tahay ra'iisul wasaare Xamse uuna iska dhex arki doono uuna ka dareemi doono xafiiskiisa waxa ku dhacana la yaabi doono waxa uu sheegay in xukuumadda uu soo dhisi doono ay isha ku hayaan iyo magacaabista xigta uu sameyn doono haddii uu tallaabooyinkii hore uu qaado uu ku celiyana uu is arki doono ayuu yiri Muxudiin Darbaweyne oo hanjabayay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre 10 qof ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeynaysa hal qof oo beesha mudulood ahna kuma jiro waan diidnay arrinkaas maalin cad ayaan diidnay hadda ayaan diideynaa waana ka hor imaanaynaa ra'iisul wasaare Xamse haddii uu naftiisa doonayo waa in uu degdeg ku magacaabaa dad ka tirsan beesha mudulood ama u dhashay beesha mudulood oo ka shaqeynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan kuwa ugu sareeya ayuu yiri Muxudiin Darbaweyne sidoo kale waxa uu sheegay in canshuur bixiyaasha ugu badan ee dawladda laga helo gobolka Banaadir isla markaana ay tahay inay ka muuqdaan xafiisyada ugu sareeya dawladda sida xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in Xamse aan laga yeelin in dhalinyaro u dhalatay beesha ogaadeen iyo beelo kale inuu ka buuxiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo waqti yar uu joogo taas aysan aqbalin beesha mudulood Muxudiin Darbaweyne oo u hanjabay ra'iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay in 50% dadka ka badan xafiiska dadka ka shaqeynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha inay ka bataan ama ay u bataan dadka u dhashay gobolka Banaadir ama dega waxa uu sheegay sidoo kale canshuur bixiyaasha ugu badan inay yihiin dadka gobolka Banaadir gaar ahaan mudulood Axmed Madoobe waa og yahay taas Xamse oo adiguna waa og tahay Ilaahina waa og yahay uu yiri marka laga yimaado beesha hawiye in beesha mudulood ay tahay dadka ugu faraha badan ee canshuurta ku bixiya dawladda sida darteedna waa in 50% ka badan ay ka shaqeeyaan xafiisyada ugu sareeya ee dalka waxa uu intaas ku sii daray Muxudiin Darbaweyne oo kamid ah odayaasha beesha mudulood shalay ay ahayd markii aan Axmed Madoobe taageereynay maanta kama filayno in uu yiraahdo mudulood halaga dhex waayo xafiiska ra'iisul wasaaraha maadaama uu yahay shakhsiga gadaal ka riixaya ayuu yiri Muxudiin Darbaweyne
cidna kama ogolaan doono in xafiiska ra'iisul wasaaraha laga waayo dadka deegaan gobolka Banaadir waliba waa in iyagu ugu bataan haddii kale wixii dhaca waa la yaabi doonaa iyo sidoo kale hadalkiisii raaciyay ugu dambeyntii waxa uu ka dalbaday ra'iisul wasaaraha inuu dib u eegis ku sameeyo arrintan iyo magacaabistii uu sameeyay dadka ugu faraha badanna uu ka dhigo kuwa deegaan gobolka Banaadir oo sida uu sheegay naftooda u soo horay sidii dalkan isbedel uga dhici lahaa xamso waxaan ku leeyahay hoggaanka Soomaaliyeed waa mudulood 35,000 oo ka badan oo ciidan dadka haysta waa iyaga haddii aad magacaabi weysid sida ugu dhaqsiyaha badan dad mudulood u dhashay waa dareemi doontaa wixii kugu dhaca ayuu yiri Muxudiin Darbiweyne oo si cad uga hanjabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo waqtigan xaalad xun wajahaya Xamse ayaa dhanka kale si weyn waxa dhinacyada uga taagan dad ka tirsan ama dadka ugu sareeya ama xubnaha ugu sareeya ee kooxda Damal Jadiid kuwaas oo iyagana ku cadaadinaya sidii xukuumadda cusub iyo wasiirada uu soo dhisayo dhammaantood ama ugu badnaan 80% ay u noqon lahaayeen kuwa Damal Jadiid ah si ay wadanka u sii haystaan Xamse ayaa arrintaas ka biyo diiday waana tan keentay in mar kale dib u dhac uu ku yimaado magacaabista xukuumadda cusub iyo golaha wasiiradaba xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale Xamse ayaa kulan la filayaa inuu uga qabsoomo filla Soomaaliya kaas oo la isku meel dhigi doona qaabka loo soo magacaabayo golaha wasiirada cusub sidoo kale waxa laga yeelayo hanjabaada ka soo yeertay beesha mudulood oo madaxweynaha uu ka soo jeedo waan arki doonaa wixii ku soo kordha iyo halka uu ku dhamaado cadaadiska lagu haya Xamse Cabdi Barre oo waqti adag wajahaya markii uu la wareegay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka dowladda Kenya waxa ay soo saartay war cusub oo la xiriira wada shaqayn hoose oo dhexmartay ama heshiis hoose oo dhexmaray madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka beeraha ee Kenya Peter Munya ayaa sheegay in heshiiskan lagu waday in toddobaadkan la saxiixo kana dhaco Nairobi balse uu dib dhac yimid markii uu madaxweyne Xasan Sheekh tagi waayay halkaas markii uu ku daahay safarkii dalka Turkiga waxa uu sheegay in heshiiska ugu horeeyay uu yahay mid ganacsi gaar ahaan kan qaadka oo sanado fara badan ay labada dal kala saxiixdeen Peter Munya ayaa sheegay in dib u dhacan uu yahay mid markaas iyaga dhankooda culays weyn ku ah maadaama Kenya ay doonaysay in heshiiskan la dejiyo laakiin arrinta ay sabab u tahay in uu ku soo daahay safarkii Turkiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoosta ka xariiqay Munya in dhawaan la saxiixi doono heshiiskan uu yahay kan ugu muhiimsan oo ay doonayso dowladda Kenya waa heshiiska qaadka ee labada dal dhexmari doonee sidoo kale waxa uu hadalkiisa ku daray in madaxweynayaasha labada dal ay markaa kulan qarsoodi ah wada yeesheen xafladii caleema saarka ee Muqdisho ka dhacday Xasan Sheekh lagu caleema saarayay kadib waxa uu sheegay in si degdeg ah isku meel dhigan in labada dal xiriirkooda dib loo soo celiyay gaar ahaan kan qaadka waxa uu sheegay sidoo kale uu carab ku adkeeyay in Kenya ay faa'iido fara badan u jirto arrintan Kenya laakiin Soomaaliya ilaa hadda aysan sheegan danta ay ka leedahay ama waxa looga bedelanayo qaadkaasi waxaan rabaa inaan cadeeyo ama aan u cadeeyo beeraleyda Mira inaysan isniyo jabin heshiiska ganacsiga lama saxiixin talaadada ayaa lagu balansanaa in la saxiixo laakiin sabab la xiriira in madaxweynaha Soomaaliya uu tagi waayay Kenya kuna soo daahay dalka Turkiga ay dib u dhac ugu timid labada madaxweyne waxay ku wada hadleen sidoo kale qadka taleefanka waxayna halkaas isku meel dhigan heshiiska qaadka ee Mira Uhuru ayaa Xasan Sheekh u sheegay in si degdeg ah uu ku saxiixo heshiiska ka hor intuusan soo gudbisan waxa isagu uu ka doonayo dowladda Kenya ayuu yiri Munya oo saxaafadda la hadlay filla Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ka gaabsatay inay ka hadasho arrimaha heshiiska la xiriira oo la gaartay dowladda Kenya bishii June ay ahayd markii wasiirka beeraha ee Kenya uu shaaca ka qaaday in wada hadallo u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ay mir dhal noqdeen sidoo kale labada madaxweyne Uhuru iyo Xasan Sheekh oo saaxiibo hore ah ay markiiba heshiiyeen markii uu madaxweyne Xasan Sheekh la wareegay kursiga looga taliyo Soomaaliya dhankeeda waxay hakisay qaadkii laga dhoofin jiray Kenya 2 sano Soomaaliya ayaa hore u hakisay 2 sanadood ka hor qaadkii laga dhoofin jiray Kenya ee loo iibgeeyay jiray Muqdisho markii labada dowladood ay safaaradaha kala qaateen kadib markii go'aan uu soo saaray madaxweyne Farmaajo oo sheegay inaan loo baahnayn qaadka Kenya sidoo kale cadaadis fara badan ku hayay dowladda Kenya laakiin waxa dib u fasaxay Xasan Sheekh oo heshiiskii ka horba waxa markii uu Muqdisho ka soo dega ilaa ay diyaarado 10 diyaarood ka badan kuwaas oo sida qaadka Mira ee laga keeno dowladda Kenya ama ay leedahay dowladda Kenya sidoo kale Xasan Sheekh ayaa waxa uu si degdeg ku aadi doonaa safarkiisa xiga Kenya halkaas oo uu kula meel dhigi doono heshiiskan Uhuru Kenyatta sidoo kale heshiisyo waaweyn ay halkaas ku siixan doonaan xogaha aan ka helayno waxay sheegayaan in kadib markii Kenya heshiisyadu ku siico sidoo kale Kenya uu ka tagi doono Xasan Sheekh uuna si gudbi doono dalka Eritrea halkaas oo sidoo kale ay ku sugan yihiin
dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo 5,000 oo askari gaaraya halkaasna ku xayran lacag ay u haystaan sida la sheegay dowladda Eritrea oo sheegtay in lacagtii ay ku tababareen ay u baahan yihiin haddii la sii waayana mid ay u dilayaan ciidamadan u dhashay Soomaaliya oo aan la geyn doonin iyagoo caafimaad qaba Muqdisho. heshiiska Kenya iyo Soomaaliya iyo Xasan Sheikh haddii aan halkaas u gudbana faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxaysaa dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Gedo waxaana dagaalkaasi u dhaxeeyay shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya. dagaalka oo ah mid aad u cusla ayaa waxa la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkan uu ka dhacay meel u dhow Doolow waa degmada Doolow iyo sidoo kale Luuq halkaas oo dagaalka qaybtiisa ugu xoogan uu ka dhacay. wararka waxay sheegayaan in xubno ka tirsan shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada xoogga dalka ee halkaas ku sugan xilli howlgal ay ka wadeen wadada xiriirisa labadaasi degmo waxaana intaasi kadib qarxay dagaal weyn oo foolka fool ah. ila wareed ku sugan halkaas oo dhanka la hadlay waxa ay sheegeen in dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kalena dadka deegaanka markiiba ay bilaabeen in guryahooda ay ka barakaceen markii madaafiic labada dhinac ay isku tuureen. sidoo kale waxaa jira khasaare kala duwan oo labada dhinac gaaray iyo dadka deegaankaba kaas oo leh dhimasho dhaawac naf iyo maalba. sidoo kale waxaa jira in dadka deegaanka qaarkood ay soo warinayaan in ciidamadii dowladda halkaas ay ku awood roonaadeen oo ay dib uga soo laabteen howlgalkii ay ku jireen iyagoo dagaalka toos ula galay kuwii shabaabka wixii ku soo kordhay dagaalkaas oo ilaa hadda xabada goosgoos ay ka dhacayaan ama ay ka socdaan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo aan idin soo gudbin doonaa halkan waa dhanka rukumis aad u heshiis wararka ugu xisaab badan ee dalka oo xaqiiqda ku saleysan.